بسم الله. cashirkan waa cashirkeeni labaad ee Adobe Premiere Pro koorsadeen editing-ka. Insha Allah waxaan ku qaadan doonaa cashirkan wax loo yaqaano interface and layout iyo import and basic edit. Fadlan noo soo kici software-ka Adobe Premiere Pro. Markaan soo kicina software Adobe Premiere Pro saan ayuu soo muuqanayaa qaabkan interface-kiisa ugu horeeyo. Waxaan ka dooranaynaa file. Markaan file doorano waxaan soo baxay qoraal tiro badan. waxaan ka sii xulnaynaa file new project. kadib waxa ugu muhiimsan labada god ugu horeysa ay ku qoran tahay name iyo location. Name waa projecti aad diyaarinaysid magaca aad ku qoranaysid. Location waa projecti aad diyaarinaysid meesha aad dhigan lahayd. Ana hadda waxaan dhigtay oo ii yaala desktop-ka wuxuu ka sii yaala folder oo qoran yahay tijaabo. adina maxaarta dhigi kartaa oo browser afuray folderada ku muuqdo midka aad leedahay dhiganay kadib okay aad leedahay. intaas kadib waxa ku soo bixi doona interface-kan afartan qaab ay ku soo bixaysa. qaybta ugu horeysa calaamaysan waxa loo yaqaanaa project. waa meesha laga soo geliyo video-ga, music-iska iyo images-ka sawirada. qaybta labaad waxa loo yaqaanaa timeline. waa meesha muuqaalada lagu jarjaro. timeline waa meesha muuqaalada lagu jarjaro. saddex qaybtan sare waxa loo yaqaan program. waa meesha muuqaalada aad jarjaraysid meesha aad ka daawan lahayd. afar source ayaa loo yaqaanaa muuqaalka intaadan jarin ka hor meesha aad ka daawan lahayd waay. intaadan far saarin ka hor inuu saxiix inuu qaldan meesha aad ka daawan lahayd waay. ama muuqaalkan ka shaqo gal rabtid wuxuu yahay. waxaa isleh marka waxa loo yaqaano source iyo project iyo waxaa isleh time iyo program. time iyo program ayaa isleh. waxaa isleh project iyo source. intaas niyadu ku hay insha Allah waxaan rajaynayaa inay xifdid. hadhow maxaa isleh haduu lu dhaho waxaa isleh project iyo source. sidoo kale waxaa isleh timeline iyo source iyo program. waxaan rabnaa inaan soo gelino marka muuqaal markaan soo gelinayna afar qaab ayaan muuqaal soo gelin karnaa. qaybtan project aan ugu joogno horta waxaa wax laga soo geliyaa siis banaanba project wax laga soo geliyaa. qaybaan kale wax laga soo geliyo project bis wax laga soo geliyaa. afar qaab ayaan muuqaalada soo gelinayaa. waxaan u horeeyo double click meeshan project adoo joogo waxaa sameynaysaa inaad bash project laba mar click ku siisid. isla markii markaad click muuska ku siisid wuxuu ku gudbin doonaa waa ujeedaaba file-kii ku diyaarsanaa ama folderadii ama desktop-kii ku geynaa. midka marka aad u talgashay inaad editing gareysid folder samaysid tusaale tijaabo sameyn tijaabaan soo gelinaa. waan soo gelinaa folderkan waxa ku jira music, image iyo video. saddexdood waxaan saarnaynaa marka select oo la saarnaynaa kadib waxaan soo gelinaa open aan leenahay. afwan wuxuu diiday sawirkii uu diiday sawirkaan soo gashanaa laakiin dib ma laha. laakiin hadda waxaa meesha noo yaalo music iyo video. sawiraan soo gashanaa marka sawirkaan raadinaynaa. jarka tag sawirka caadi aan soo gelinaa marka. sawirka caadi markaan soo gelino marka meesha waxaa noo yaalo music, video iyo image ayaa noo yaalo. saddexda ayaa noo taalo. waa qaabka koowaad ee aan soo gelin lahayn. waa qaabka koowaad waa double click inaan siino projectiga sidaas aan ugu dalbano waxa yaali folderadeenna inaan kasoo gashano desktop meesha yaali. waa qaabka ugu horeeya. qaabka labaad aan soo gelinayno waa drag and drop ama soo jiidid waxa loo yaqaano. intaan horta iska deleedno intaan markaan deleedno mar labaad soo gelin rabnaa moogtahay. markaan drag and drop aan sameynaa folderka anaga waxaan ugu jiraan tagaynaa. tusaale folderka intuu yaala waa kana marka saddex shay dad yaalay. waxaan soo qaadanaa music-ki iyo video sawirka ma soo galay. waa soo jiiday drag and drop waa ku daynay. waa soo gelis qaybka labaad waay. haddana waa deleedna qayb saddexaad aan fiirinaynaa. qaabka saddexaad waxaad tagaysaa file aad tagaysaa kadib waxaa leedahay import. toos wuxuu ku geynayaa folderada meelaha ku yaalo. kadib folderka doornaa inay tijaabaan leenahay. kadib soo doornaynaa soo gelinaynaa open leenahay. kadib halka markaan joogno waxaa jira waxa loo yaqaano bin ama waxaa jira qaabka afraad waxa waaye inaad tagtid media browser kadib aad doortid location-ka oo folderkaaga yaalo kadib aad meeshan ka soo gelisid. haddii aad location-ka yani folderka magaciisa taqaanin qaybta sare searching-ka ku qorayba magaca kadib waa soo galaa.
magaca markaas soo gelis kadib folderka soo dalbani waxaa marka aa lehed ama markaas meesha soo gashanay waa qaabka ugu dambeeyay oo afraad waa qaabka soo gelinayna waa folderadan hadda taqaan ka soo baxsanay okay marka hadda waxaan rabnaa inaan soo gelin muuqaalan soo gelinayna muuqaalkiina soo gelinayna muuqaalka soo gelin kadib hore u sii soconayna muuqaalka iyo video aan soo qaadana soo geli muuqaal iyo video marka meeshaan keena marka hadii mar oo project aa keenta muuqaal video iyo sawir waxyaabo kala hada keentid effect yaa dhawada imaadaan wixii dhan isku dhaxyaacayna qanaa qaab darina qanaa meesha dhan marka waxaan sameeynaa waxa loo yaqaan folder Premiere Pro wuxuu yaqaanaa bin saddex qaab ayaa loo sameeyaa folderka asana saddexda qaab aan baranaynaa qaabka ugu horeeyo adoo project joogo meeshaan project adoo joogo waxaa sameynaysaa waxa loo yaqaano right click kadib waxaad tigaysaa new bin sasay ku sameys folderka waa ku sameys bin oo qoran folderka qaabka koowaad waa ku sameey lahayd qaabka labaad qaybta hoos ku deesan waa kana new bin oo ku dhufanay labs qaabka labaad waa bina sameysatay ama folder waxa loo yaqaano Premiere Pro folderka bin oo yaqaana qaabka saddexaad waxa waaye control b ina dhahayd ama kuma b hadaa isticmaalaysid computer Mac ah control b marka dhahayd folderka ku sameysmay marka si defaultiga ah folderka bina isaga qoran marka labo folder aan sameeyno labo folder aan u kala gelino music iyo video meesha oo yaalo labo folder marka sameeyno marka kan drag ku sameey waxa gelisaa qaybta sare muuqaalka qaybta hoosna music geli drag ku sameeyay bis waa ku jiiday folderka ku kordeynay sidaas ayuu u galay marka wax ku jirna aragtid calaamada sir afuray waa ka meesha ku yaala video ku jiro kan fur kan music ku jiro dhibaatada marka taala waxay tahay meeshan labadu waxaan u qoran bin kuma qoran kan music ku jiro kan wax maqaar marka waxa sameeynaa rename right click leedahay rename aa dhahay kadib magaca ka bedelay laba qaab loogu bedelay asnaftirkiis rename ina dhahdid soo meesha magaca ka bedelo qaybta kale ma osana right click kordhe right click magaca dhahdid rename magaca ka bedel kadib ama waxaa sameyn kartaa adoo kor joogtid folderka waxaa leedahay enter hadda mar enter dhahayd kadib saas ayuu bedelmaa enter dheh okay magacana meesha ka bedeshid intana imaanay enter aa leedahay right click waxaasna waa ka maarmi kartaa oo waxaa adeegsan kartaa bis keyboardkaaga kadib hadda waxaan bedelnay folderkii magaciisa ayaan bedelnay laba qaab u fiiri karnaa marka folderka hadda wuxuu yaalaa qaab oo vertical and tag u yaalaa horizontal waa ka dhigi karnaa meeshan oo view icon ay qoran tahay tage hakana wuxuu ku noqonaa horizontal ama jiif waa loo yaqaan folder waaweyn inay ku noqdaan ama dhan kale inaad tagtid ama soo kugu noqdo vertical tag soo kugu noqdo tag u noqdo waa kana qaab kale tag la dhaha qaabka markuu weynaanayn waxaa la jiifkii waa wixii ku jira marka aragtid waxaa sameynaysaa labaas eelkii yaraa furaysaa wixii kugu jira meesha ka arkay waxaa kana inta fur waxaan rabnaa marka inaan muuqaal soo gelin timeline-ka inaan muuqaalka inaan soo jarjar waxaas inaan bilaabnaa rabnaa marka keenis intaa bilaabin kor waxa laga rabaa inaa ogaatid waxa loo yaqaano sequence wax la inaa sameysid sequence-ga right click leedahay muuqaalka kadib new sequence kaliya baa leedahay sequence-ga faa'iido leeyahay waxa waaye muuqaalka resolution-ka aad kusoo duubtay iyo resolution computer-ka in waxaa rabaa la soo waafajiyo laba qaab baa loo sameyn karaa in hadda saan sameyn oo kale right click aan dhahno oo soo jiidno iyo in yani muuqaalka inaan dileedno kan inaan caad u soo jiidno oo timeline aan ku soo dayno kadib sequence oo sameystay marka inuu sequence sameeyo waxa ku dareemay muuqaalka soo gelisay fiiri muuqaal kale isku calaamad yar waxa saaran kan sak ah oo buug camal ah kana calaamad caadi ah saaran resource ku day muuqaal kale يعني source waxaan ka daawanaynaa muuqaalkeena inta jirjirin korto waxyaabaha oo ka khaldan iyo wixii kale muuqaalka inuu asiyahay in kale meesha ka aragnaa rabaa okay marka meeshaan keeno meeshaan aa u jeedid waxa ku qoran V1 iyo A1 meesha V1 ay ku qoran tahay waxa laga wadaa video 1 meesha ku qoran tahay A1 audio 1 la wadaa hadda muuqaalka aan soo gelin fiir timeline-ka meesha video ku toosan waxa ku qoran V1 meeshan A ku toosan audio 1 way midkood da xirno soo video da xiro ka video dhama arkisid video markis isha da xiro hadan isha xirana ma arkisid audio ma yiray
marka track 1 iyo track 2 track 3 waxaas uu yaqaanaa. marka video 1 video 2 video 3 oo jida video qaybta sartan video soo gash kartaa. booska video ma tagay wax oo muuqaal ah ee waxa ay sheekasi oo cod ah. qaybta muuqaalkan ma imaanay wax cod ah, wax oo cod ah ma tagay misku xad gudbi karaan ma yeelay ma ka aqbalay. marka meeshan waa track 1 track 2 track 3 intan waa audio 1 audio 1 audio 1 audio 2 audio 3. marka sidoo kale Adobe Premiere wuxuu leeyahay tools kana ujeedaa waa pen tool waa pen tool kana caadi waa taqaaniin markii wax lagu soo jiijiiday caadi waa Photoshop ka taqaaniin waa taqaanaa. sidoo kale wuxuu leeyahay kuwana meesha fan geedkan waa kay wax lagu jaray waay kan waxaan waxa loo adeegsadaa kan waa sheekasi pen tool kii waa sheekasi textigi iyo kii gacan handigi dhamaan marka waa adeegsadaa dhamaan waa adeegsadaa oo imaan doona kan waa play hit waay meesha marka playgan laba qaab play u dhigtaa inaad dhahdid play caadi inaad dhahdid play caadi intana space inaad adeegsatid labadaba marka waa u socodsiin kartaa muuqaalka. calaamada marka dheer oo jidid oo muuskan ku dhaqaajinay waxa loo yaqaanaa play hit loo yaqaanaa. marka intii oo muuqaalku sii socdo waa calaamada soconayso play hit qaybta korna waa kay intaas aanay ka tahay play hit loo yaqaanaa. sidoo kale waxaa rabaa inaad fahanto calaamadan waxa loo yaqaanaa make in tan kale waxa loo yaqaanaa make out. make out eegan waxa loo talagalay in muuqaalka trim loogu sameeyo ama lagu jaro. tusaale kale muuqaalkan hadda aan soo jiido make in aan dhaho kan aan soo jiido calaamada soo jiida mugtahay intan make out marka la fiiriyo intan yara ay jarmatay muuqaalka inta sir hadhow inaan soo qaatay meeshan timeline ka aan keen karaa editing garay karaa caadi inaan soo jiidaa. marka make in soo adeegsay make out labaas calaamad waxa kala make in make out. meesha u jeedin waa video kan waa audio. video hadii inta tusaale aan ka daleedo timeline ka daleedo suuq timeline marka ka daleedo hadaan video soo qaato video dan soo jiido oo aan keen timeline cod mi soo raacay jida video bis ay imaaday codka mi imaanay sababtoo tahay in video bis soo qaatay video bis editing garay kartaa. waxa kala sameyn kartaa in audio soo jiid naftikiis soo qaadid ama sheekintid asana ku editing garay kartaa. waa kala labood markay soo raacsiin sidaas mid oo soo qaadi kartaa labood hal mar oo soo jiid kartaa. marka waa had midka ku dooran waay anaga audio soo qaadna marna video aan soo qaadnay audio and video. sidoo kale calaamadan waxa loo yaqaanaa zoom in iyo zoom out laha. hadda inta ka jiido jeeda muuqaalka oo yaraana fiiri hadda inta jiido muuqaalka weynana waa zoom in iyo zoom out ii weynay marna ii yareeyo zoom isu dhabeeyo mugtahay zoom in zoom out na ii fogay. marka ayadna waa loo adeegsadaa calaamadan loo adeegsadaa adoon meel kale taawna calaamadan hoos adii jiidanay. sidoo kale muuqaalka oo socda sawir ka qaadi kartaa meeshaas calaamada sir oo kaamirada u jeedid kaamirada sawir ka qaadi kartaa muuqaalka soo socdo ay sawir u qaadi kartaa shan tijaabino. okay waxaan rabaa hadana inaan ku tuso qaabka loo jaro sida muuqaal loo jaro tusaale halahan diyaarsanay waxaan rabnaa muuqaalka halahan wax ka dambeeya inaan iska jarnaa rabnaa halahan wax ka dambeeya inaan jarno laba qaab oo jari karnaa inaan imaano calaamadii wax lagu jaray aan soo qaadno iyo in aan keyboard ahaan u jarno. had meeshan oo kale halahan rabaa inaan jaro waxaan sameynaa labadan waxaan soo qaadnaa calaamadan soo qaadnaa hada ujeedid soo qaadan doonaa waxaan ku deynaa meeshan muuqaal korkiis isla markaa automatic aan check markaan ku sii kale ku sii fiiro waa jarmay kan check aan ku sii kale kasan waa jarmay. calaamada marka labaad calaamad jarmay pen tool ka tag fiir jiid marka waa jaran yahay kana wuu jaran yahay sane labadu way jaran yihiin sababtoo taana hor u jaray waa jaray calaamadaas waa adeegsaday. control z dana soo celiyo marka muuska adeegsanayso waxa leedahay marka muuska adeegsanayso waa control key muuskan ka adeegsado shortcut kiis waxa way control key inaad tagtid oo hal mar select all saartid labo select saaro ka sax leeyahay control key aan amr oo jarmay labood aan dhaqaajiyo marka labood caadi u dhaqaaqa markaan sababtoo ah wuu jarmay oo qaybta jarida waay muuqaalku wax ka qaldamo oo kale am kastaan u baahnayn oo kale marka jaris oo kale
control key lagu jaraa ina kaysarka waxa geynay meesha ka jarisid kadib control key leedahay ama kala calaamadaas ina soo qaad ku sii diisid labad bay ku banaantahay ku jirtay marka marka muuqaalkan waxa ku baratay interface and layout sidoo kale waxa ku baratay afar qaab oo wax loo soo geliyo sidoo kale waxa ku baratay saddex qaab oo folder loo sameeyo waxa ku baratay laba qaab oo folder ka magac loo sameeyo waxa ku baratay sida icon-ka loo arko laba qaab icon loo arko sidoo kale waxa ku baratay space iyo playhead iyo make in make out marka soo muraajacay muuqaalka dambe gaarin insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.